انت هو قد بنا marka xagga Soomaaliland baan adeynaa ciro waxa loo doortay madaxweynaha Soomaaliland si aqlabiyada ayuu ku soo baxay waa sida طبعا Muuse tartameen oo tabasho badan laga qabay ayaa dhaxdaas waxa Soomaaliland xukuumaddu ama dawladda ay u dabaaldegaysay 10 boqolkii maalmood ee ka soo wareegtay markii xilka uu la wareegay iyo guulihii waxyaabihii uu qabtay laba safar oo muhiim ah oo kale midna Kenya ku yimaaday midna Imaaraadku ku tagay warbaahinna caalami ah ka Imaaraadka wareystay xitaa waxa la sheegay kursiga madaxweynaha Soomaaliya in lagu fariisiyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xitaa loogu yeeray meelaha qaar bal ciro xagee Soomaaliland u wada ninka nimanka horta bahasha la yiraahdo boqolka cisho waa American concept mugtahay Mareykan dawladda ugu weyn weeye adduunyada dhaqaale ugu weyn beelada ma ninka Trump meesha jooga markuu wax saxiixo xaba halka ka qarxay mugtahay dadka reer miya weeye geel jira iyo laba saddex magaalo oo yara camiran bay leeyihiin nabad bay haystaan nabad maamul bay samaysteen oo gobernimo aad weyn bay sameeyeen oo xilka way kala wareejiyeen wax taa ka weyn adeer meesha ma jiraan dadku meesha ay Soomaaliya taagantahay bay taagay haddaad indicators ka aragtid mortality iyo waxyaalahaas oo dhan dadku wax badan ma hayaan Soomaaliya oo dhan ba faashil siyaasadeed ka jira anigu waxaan oran lahaa ninkan inuu meeshaba dalkan Soomaaliya la yiraahdo inuu isagu la wareego iyo xukuumaddiisa oo calanka Hargeysa la geeyo reerkeygii marka way iga qaylin doona way iga dagaalami doona waayo gooniisu taagay ku jiraan laakiin anigu Axmed ahaan tan walba iyo ilaahaygiisu leeyahay anigu mabda'aygi baan leeyahay xoolana ma nihin waxaan qabo anigu waa sheegaya inuu loo meesha dhan loo wareego oo uu ciidan iyo sirdoon iyo nidaam u sameeyo oo nimankana u dagaal geliyo ciidankaas oo ka saaro inamada dhibaatada keenaya magaalo labadkii weeyaan Soomaaliya meesha waxa ay corner la gelayaan container kan ay ku jiraan ha ka soo baxay Soomaali weeye ixtiraafkan ay raadinayaan waxba kama jiraan dadkooda u yeeran Hargeysa ku heshiiyeen iyagu 10 sanadood oo kale dadka hawadeen dastuur ha u sameeyeen dalka gobolnimada halkaas ay ku jirtaa wixii xisaab la ahaa dhibaatada meesha ka dhacayna xisaabteesa ay leedahay cid walba waa garanaysaa shalay baad arkaysaa meeshii hanolaato nin ciidamada ku jiray oo ka hadlay dhibaatada meesha ka dhacay dhibaatadu laakiin cid walba wada gaaray meeshaas dhibaatada waa ka sareysa dadka kale waxay ay gaareen because maamul dhabba u soo jeesto oo yiri waan idin leynayna intii kale waa waxa way waa wax qarxay weey marka waa la wada jabay laakiin jabkooda wuxuu ahaa mid dheeraad taasina ka candacooday inay rabaan dib dambe inay ku soo noqonay war jid kale ma jiro hore baan u sheegay siyaasadana male calool oo lagu damqado waa inay u yeeraan walaalahoodii Hargeysa keenaan shir sameeyaan ilaa calankii baan soo celinay kulligeen dekan ba taariikhdu naga dhigtay aanu ka baxno faashilka aanu ku jirno jidka saxda ah aanu galno laakiin aad u maasanta arintaas Axmedow waxa la leeyahay hadii koonfur ay badeg leedahay Soomaaliland dabcan nabad baa haystaa doorasho dimuqraadiyad ay ku dhisan tahay qabsadaan oo dadka ay codayaan madaxooda dadka iyaga soo doorto u madax banaan Soomaaliya doorashada aan ognahay shabaab baa jooga dhibaatooyin baa ka jira oo dhibaatooyin amni darro ka jirta waa sida maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka baan heshiis ahayn Soomaaliland marka waxay ku doodaysaa war anagu nabad baan haysanay yaan wax ku darsanaa oo nabadu ma cunaya war meesha oo dhan la wareega oo maamulka la wareega Muuse bixiso kan uu farmaajo diyaaradda markuu Addis Ababa joogay oo ka soo degay oo markii dambe ka baqay isaga ku jiray ninka maal walba gooniisu taaga la taagan isaga ku jiro oo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa la kulmay farmaajo waxaan ku boorinaynaa xukuumadda meesha ka jirta war dadka hadiiba referendum gaba u geeyay shacabka weydiya haday diidaan la saa ku jooga laakiin sida si wax lagu wadi kari maayo midda kalena inay dawladda Soomaaliland oo nabad leh inay juqjuqeeyaan oo laascano juqjuqeeyaan oo ceergaabo juqjuqeeyaan oo meel walba juqjuqeeyaan oo ay yiraahdaan Soomaaliland baan burburinayna war hadda kuwa qaadataan kuwan weyn xagee geenaysa iyagu haday ku diidaan kuwa ma kuwan u bad la baxaysa war dadka la isku wado
oo waxaan ka socda hablaha yaryar iyo dadka wax baranaya ha laga dhaafo waxaa loo baahay annaga halka joogda baraya annaga kuukuuyo cid walba meesha joogta war nimanka Soomaalidu way isleeyihiin Soomaalilandna waxeeda gaar bay u helaysaa wax ay dhiibayso ma jirto laakiin dawlad union ah oo iyaguna madaxweyne ka noqonaya toodina gacantoodii ku haystaan ayay helayaan marka wax meesha lagu baqo ma jiraan hal isu yimaado baan waa ta dhowr iyo 30 sano Soomaaliland ictiraaf raadinaysa waliina ma jiro dal aqoonsaday madaxweyne walba soo galana wuxuu ku orolay waxa weeye in ictiraafkii uu keenayo anigu taa hore ka hadlay marka qaarkoodna dadkii ictiraafka kabtan baa iridaba loo keenaaba ma ku muuqata marka wado Soomaaliland ay ictiraaf ku helayso war yaga ba indhaha Soomaalida yaga inay ictiraafaan yaga Soomaalida tusay inay dawladnimadu waxay tahay yaga tusay nabad waxay tahay yaga tusaale horena way wahay yaga ba markii hore calanka meesha geeyay yaga gobonimada soo doonay hadeerna yaga ka masuula inay nimankan gacanta ku qabtaan wada anaga kuwan dejinayna ay si fiican unionkii hore mar dambe la saxo oo ay guarantees ay leedahay oo nin walba garanaya wuxuu leeyahay ayaa siyaasad ah laakiin in caalamka loo wareegayo waxaan caalamku doonay de waa faashil way arinkana in la iska indhatirma in runta madaxda meesha inay isu sheegaan ay yiraahdaan si weynanu si un ka baxna maalin walba cajalada riwaayad aan soconay inay dadka ku maaweelayaan anu lama qabo wana sheegaya waad Axmed aad ma santahay waa halkaaga waa cad yahay waxaan rabaa dadka Soomaalida markii waqooyi koonfur yiraahdo dabcan de waqooyiga dadku waa la fogeeyay ictiraaf iyo waxa weeye dawlad baan nahay waa jamhuuriyad madax banaan dadka waa la laayo waa dhibaatay sax waa la dhibaateeyay dadkii way fogaadeen marka waxa leeyahay siyaasiyiintu way isla hadlaan oo way iswacaan oo iyagu meelaha ku kulmaan way wada shaahan laakiin shacabkii bay kala dileen marka waxa leeyahay xitaa hadii midnimo noqoto riwaqooyi madaxoodu dadkii sida uga dhacin lahayn baa culaysa marka sidee looga dhacin karaa dadkii in dibkii jeexay dhalay laga soo war dadka runta loo sheega hadiideen laakiin runta u sheega مسؤولية ذلك هو جانك وحويه إنه أفكيس رد كشيء محمد حاج إبراهيم قال الله يرحمه برجع اللفها اللي قصوا صار ملك دردرة وكيو خطبة ماشى كتيري رد وشجع ليدر وها وحينوبة هن هيداد ليدر كاسو كله أو دات كان رد وشجع هذا سان صعود ما يصير محاي نطلع أو لا شراء ولا قوة وقوة وتركز ما يكون بيني المتشري وقوة ما تحد كمريان قوة نحلوت عليه مربى نبى وشاي مربى هذا العد وشلولي بيقولوا طلعي محاك حن ننري وقوية أو عديدي إنه يسوون وشا قبطوا ضد كان مال مريا مرنا نبى وصوبها غير كدوري هنقضه شرينا يجا على ككانه ما أنت كفور إن الديارات تسكت شمال وهرجيسي ما ضايل هذا ولا عليها أما هين نوضع أيه هاي ويلي تاجي سومالين بس ده قلت الريكوفر وحلو شيء حبك حتى كم هاي السومالي ده أفكنا كداية أو حشارة أو كحشارة نمك سو جبني ما ده يسمعني ديكو ما سمعني كريسانة مركات تود مركات قاعدة تطلع دي كريسة وان لاي هذا ما سنت SSC سومالي لأنه حد أحمر يوالوجا تدور عليه إهلا أو ذوذاجها أو أبتي أداري يصدق يسدي وحول بيسواه يا هاين موسى maamulkii uu hogaaminayay dib badan buu laascaanada geystay maanta waa la kala joogaa in kasoo bishii Ramadaan ay dad waxa weeye ay ciidamo islaayeen qoladii SSC waxay leeyihiin wanoo nabad aan ku wada joogno maxaabiis baa la kala hayaa waliba kuwa aad u badan xagga Soomaaliland oo ciidan ah saraakiil ay ku jiraan laascaanood wali ku xiran bal iyaga laftirkooda labada dhinac maxaa talo oo maanta u jeedaa waa fidnada aad weyn oo ceeba waxana gardarada buuxda leh موسى بحبايا موسى بحبا ضد إسكندرية جوجا ويرك وقاضي ودبعت عاد وين كان إستجنا إن شاء الله إلهي الدنيا ده والله حساب تبي دونا تاسو عيب وين بيعي وأنا قاعد وعم باريني SSC ده ندت كي سميه بان كمده أنا جي جرات جامعة يحقلت توسي بان وتاجر سنة SSC لكن SSC نمر وقوي قوي SSC أنا جا ويا شو دم بيدله يا جاي دله بيره هني عرقاو ساسي وده تال ورينا السياسيين دبعتنا ضدك يا لوكيل SSC وحكومة حال شرين محبوسا هكلا صارين ضدك هايشين يقول نمر وقوية أو الصومال لماذا الدنيا هنقدر وانيك سيلت ملا ضدك واشين بري ملا ضدك واشين مورم بابا كتير الصومالي ناته
muraba kaga jira war maamulka waad lahaan doonta ciidankaaga waad lahaan doonta gobolnimadaada waad lahaan doonta wax la isu keeno caalamku nin walba deegaankiisa ka tirsan laakiin waxayna mideeya waa in la raajaa ya hargeysa ayaa maanta magaalo madaxa Soomaalida ah in iyagu talada la wareegaan way anu wasaylo waad nin siyaasi ah oo aqoonyahan oo aad u falanqeeyana waa tahay wax oo akhriya wax badan baad ogtahay halkan baad Nairobi baad joogtay madaxweyne Ciirra iyo wafdi hogaaminaya halkan bay yimaadeen xafiis ay ka fureen uma tagin maxaad ugu tagay ma ugu tagay decisionist way aan ugu tagay ilmaada habar yuris baa isla nahay isagoo saasa soo warxasu ma hadal ba isagoo saasa isku qadiyad baynaan wahayn ما نيجي إذا كنت قد يدهين سو هذا ما وضح لك كرتان ماشي كيسن كرتان حاجة وضح لأنه كمركم معارض كوتشر وضح لك لأن لما إنه هبري نسبان هاي إنه كم ضحنا سومال للويان حاجة وضح لنا حاجة وضح كم إنه جوني قصد إنه جوني قصد كسورتشين كيرجع عن النقطة ساس أقول كل مين مرة حلو تجي المعادن بانه هاي لما إنه طلبينا ترام بانه هاي الديمقراطية اللي دورتوي ترام وين بانه هاي لكن ده أنت قام سنة واحد سوق يجاتي أنا منافق مي أنا واحد أنا سنة هاي رات كيسا كتير